haweenaydii darbijiifka ku ahayd xarunta tareenka ee qabsatay qasriga Bollywoodka. waxa ay ka tuugsanaysay darbijiifna ku ahayd mid ka mid ah xarumaha tareennada ee dalka Hindiya. maalmo gudahoodna waxa ay ku noqotay haweenayda ugu caansan dalka Hindiya. iyadii yaraanteeda hanti iyo magac ubadkii ka cararay iyo eheladii ka faani jiray ayaa maalmo kooban gudahood ugu soo laabtay. waa qisada Ranu Mondal ee muddadan aadka loo hadal hayo. 21kii bishii 7 ee sanadkan waxa ay Ranu Mondal u soo dhaqaaqday xarunta tareennada laga raaco oo gurigeeda xogaa u jiray, taasoo ay subax kasta iman jirtay si ay nolol maalmeedkeeda uga raadsato dadka musaafiriinta, iyadoo u qaadi jirtay heeso iyo madadaalo. inta badan dadkaas musaafiriinta ah ma qiimayn jirin hal abuurkeeda suugaaneed ee kolkii ay gacanta u hoorsato ayaa qaarkood wax tari jireen. maalintaas 21kii bishii 7 wiil dhalinyaro ah oo ku safrayay tareenka ayaa maqlay codkeeda halaasiga. durba waxa uu ka naxay diifta ka muuqatay iyo xaaladda ay ku sugnayd, waxaana uu la soo baxay taleefankiisa isagoo ka codsaday in ay mar labaad ku celiso heestii ay horey u qaadaysay si uu uga duubto. muuqaalkii heesta oo uu dhigay baraha bulshada ayaa soo jiitay malaayiin qof, iyadoo durba loo soo kala orday halkii ay darbijiifka ku ahayd, cunto iyo sharaabna loo sido. inta aanan u gudbin nolosha qurxoon oo u bilaaban doonta Ranu, aynu dib u milicsanno wax yar oo ka mida nolosheedii hore. yaraanteedii Ranu Mondal si weyn ayaa looga yaqaanay gobolka Bengal, waxayna ka tirsanayd koox faneed heer xaafadeeda, waxaana loo saadaalinayay inay fanka magac ka samayn doonto. balse hanjab ayaa ku yimid markii qoyskeedu ay ka soo horjeesteen riyadeedii faneed. sidaasna waxay kaga hartay fankii iyadoo 20 jir ah. maamadan 60 sano jirka ah oo sannado badan la daaladhacaysa nolol adag oo soo food saartay kolkii uu ninkeedii geeriyooday, ayaa waxa ugu sii darsantay in halkii gabar ay dhashay ay ka fogaatay muddo 10 sano ah, maadaama ay gabadhaasi ka faanaysay in hooyadeed ay nolol maalmeedkeeda ka raadiso heesaha bilaa muusiga ah ee u qaadayso dadka musaafiriinta ah. mararka qaarkoodna ay danta ku kallifaysay inay gacan hoorsato cayshkii. ninka dhallinyarada ah ee muuqaalka ay ku caanbaxday ka duuba Ranu waxaa lagu magacaabaa Atendra Chakraborty, waxaana kolkii uu baahiyey muuqaalkiisa la soo xidhiiray shirkado, shakhsiyaad caan ah iyo warbaahin danaynaysa nolosha iyo la shaqaynta Ranu Mondal. isagana waxa uu u tilmaamay halkii uu kula kulmay haweenaydaas. TV-ga Sony ee dalkaas ayaa durba xiriir la sameeyay Ranu Mondal, waxaana lagu marti qaaday barnaamijka lagu soo bandhigo hibada faneed laguna magacaabo Super Singer. barnaamijkan oo guddigiisa ka mid yahay Himesh Reshammiya oo aad caan ugu ah dhanka heesaha iyo suugaanta, mararka qaarkoodna filimaanta wax ka jira. Himesh ayaa codkeeda la dhacay, waxaana uu u soo bandhigay shaqadii ugu horraysay oo noqotay heesta malaayiinta qof ay la dhaceen ee la yidhaahdo Teri Meri Kahani. sidaas ayay ku sii siyaaday sumcadda iyo hantida Ranu Mondal, waxaana saf u soo galay mulkiilayaasha shirkadaha wax soo saar ee Bollywoodka iyo kuwo kale, iyadoona bogaadin iyo wada shaqayn ay hawada u soo mariyeen jilayaasha ugu caansan Hindiya sida Shah Rukh Khan, Salman Khan iyo Amita. kolkii ay cirka gaartay Ranu Mondal waxaa dib ugu soo oroday gabadheedii ka faanaysay 10 sano ka hor in ay la noolaato. sida hooyo lagu yaqaanay waxay Ranu Mondal qosol iyo farxad ku soo dhaweysay gabadheedii caasiga ku ahayd muddada intaas le'eg, taas oo yaab ku noqotay malaayiin ka mid ah dadka reer Hindiya. sadarada bini'aadamnimada leh ee ay qortay Marwo Ranu Mondal intaas kuma ekaan, waxaana ay sidoo kale maamulaheeda gaarka ah u magacaabatay wiilkii dhallinyarada ahaa ee ka duubay fiidiyowgii ay ku soo caanbaxday
ee Atendra Chakraborty oo ay isagana abaalgud uga dhigtay. sheekadan waxay run u beddeshay qisooyin badan oo maawelo loo arki jiray oo lagu matelay qaar badan oo ka mid ah filimaanta Hindiga. warbixintan waxaa tarjumay oo soo diyaariyey maxamuud albashiiri, anigoo cabdirasaaq jubbaah ayaa inala socodsiinayey. tan intaan dib u kulmayno waa bahda tiyaatar oo in leh sidaas nabadgelyo.